cutub ka tirsan ururka lixaad guutada 17aad ee kumaandooska xoogga dalka ee Gorgor oo tababar ku soo dhameystay dalkaasi Turkiga ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Diyaarad nooca militariga ayaa garoonka keentay waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji, taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Tahliil Biixi, taliyaha dugsiga Turkisom Generaal Yacquub iyo saraakiil kale oo ka tirsan xoogga dalka iyo Turkiga, iyadoona mas'uuliyiinta ay mid u gacan qaadeen ciidanka ee maanta dalka ku soo laabtay. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Tahliil Biixi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka kumaandooska xoogga dalka ay qayb muhiim ah ka yihiin howlgallada al-shabaab lagula dagaalamayo. Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha noolaado! Gorgor ha noolaadeen! Gorgor ha noolaadeen! dawladda Turkiga oo walaalaha ha noolaato! waxa adinkuna aad baad u faraxsan tihiin, annaguna waa faraxsanahay. adinku waxaad ku faraxsan tihiin waddankiinnii baad ku soo laabateen adinkoo wax u soo bartay. waddankiinnii baad ku soo laabateen adinkoo caafimaad qaba. waddankiinnii iyo dadkiinnii baad u soo laabateen adinkoo u hiloobay. annaguna waxaan ku faraxsannahay ciidankii aan dirsannay oo wax noo soo bartay oo tababar qaba in ilaahay nabad noogu soo celiyey. labadaa farxadood oo kulmay guul Soomaaliya guul. waxaa jooga wasiirkii gaashaandhigga, ma raba inaan ku dheeraado. dawladda Turkiga oo tababarkaan idin soo siisay waxaan maanta u awoodnaa waxaa weeye inaan wadnahayaga iyo qalbigayaga ka jeclaannoo siinno. taasaan u awoodnaa waana siinaynaa. insha allah xilligay gaadhana waa u abaalgudaynaa haddii ilaah yidhaahdo. Soomaaliya ha noolaato! waxaan salaan idinkaga wadaa anoo ah taliyaha ciidanka dhulka, taliyaha xoogga iyo ku-xigeenka taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo idin soo salaamahayay. hawshaanna aniga ii soo wakiishay. aad baan idinkugu mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan idinkaga digo coronavirus baa waddanka ku jira. taxadara dadka aad u tagaysaan iyo xaafadaha aad tagaysaan iyo meelaha aad tagaysaan intaba aad u taxadaro is-ilaaliya. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa halkaasi ka hadlay waxaana ugu mahad celiyay dawladda Turkiga tababarada ay siiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. maanta inaad dalkiina aad ku soo laabataan idinkoo soo tababartay oo diyaar u ah inaad dalkiina, qarankiina, dawladdiina u shaqaysaan. waxaa mahad weyn aan u dirayaa walaalaheenna Turkiga, dawladdooda iyo shacabkaba oo tababarka idin soo siiyey. haddana maanta ay diyaar u tihiin inaad ku soo laabataan dalkiina. waxaan aaminsanahay tababarka laydin soo siiyey inuu yahay tababar aad iyo aad u wanaagsan, in idinkana aad tababari doontaan ciidamo fara badan oo dalka joogo. tababarkaas iyo diyaargarowgaasna dhali doono in dalkeenna amnigiisa, difaacigiisa iyo ilaalinta xorriyadda dalkeenna iyo midnimadiisa inaad sugi doontaan. waa la aaminsan yahay dad dhallinyaradan Gorgor oo ku soo tababartay inay ka duwan yihiin ciidamada kale tababarkay soo haleen iyo fursada ay haleen daraaddooda. waxaan rabnaa insha allahu inaad dadaashaan. insha allahu beri laga bilaawdo shaqadiina aad bilaawi doontaan. marka waxaa loo baahan yahay shaqadiina si daacada inaad u gudantaan. ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Gorgor inta aysan dalka Turkiga tababar u aadin ka hor waxaa lagu tababaraa kulliyadda Turkisom ee magaalada Muqdisho, iyadoo markii ay tababarka dhammaystaan kadib dalkaasi Turkiga tababaro dheeraad ah ay ku soo qaataan. Maxamed Muuse Maxamed, warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed.